بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waa Maxamed Cali Faarax, founderka iyo aasaasaha hay'adda awoosinta naafada Soomaaliyeed ee Southern. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan nagala qayb qaadataan oo inii soo gudbino fikirkeena cusub ee dadka lagu awoosinayo dadka naafada Soomaaliyeed. Barnaamijkan waa barnaamij guud ahaan dadka naafada lagu awoosiyo, gaar ahaan waxaa jira ololaheena gaarka ah ee loogu magac daray albaabkiga fur. Ololahan gaarka ah wuxuu socday muddo dhowr isbuuc ah. Higsi badan ayuu gaaray, meelo badan ayuu higsaday, horumar badan waa laga gaaray, waxyaabo badan way soo kordhiyay oo aanan hore loogu aqoonin dalka. Waxaan rabnaa ujeedada aan sameynayno waxay tahay in qofka Soomaalida ee naafada ah inuu xaq u yeesho gudaha dhismaha inuu galo, asoo aan qofna ku xirnayn, korna loo qaadin, weeljeerkiisana la dhibaateynin, inuu gudaha sida qofka kale xor ah u galo, si loo helo awood siman iyo sinaan ka dhaxayso dadka Soomaaliyeed oo idil. sidoo kale ujeedada ka dambeysa waxay tahay qofka naafada ah inuu dugaamaysan karo, bangiyada tagi karo, airportka tagi karo, meel kastana oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo si hufan oo nadiif ah ayadoo aan qofna ku xirnayn oo gudaha uga soo adeegan karo. Haddii intaas la helo kabacdi waxaa imaan doonto in dadka naafada ah ay xor noqdaan, kana qayb qaataan nolosha bulshada dhammaanteed, meel kasta oo ay ka mid tahay dhaqaalaha, siyaasadda, sportska, caafimaadka iyo waxbarashada, dhammaan inay ka qayb qaadan doonaan ayay impactiga noqon doonaa haddii ololahan lagu guuleysto. Sidaa daraadeed waxaan rabnaa baaqi inuu soo jeediyo madaxda sare ee dalka. Waxaa jira shuruucda caalamiga ee dadka naafada ee adduunka iyo midda gudahaba in dadka Soomaaliyeed ay sameeyaan inay xaqaas ilaaliyaan. Isla markaana madaxda dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in sharciyadaas caalamiga ay saxiixdo, kuwa caalamiga iyo kuwa localkaaba. aad iyo aad ayaa ugu mahad celinayaa dhammaantiin inta nagala soo qayb qaadanaysa ee barnaamijkan hadda sida live-ka u daawanaysa. mahadsanidin.